يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي عباس جانك عباس باي صاحب يا دمانتين واني سلامي سلام كدب رير بوك دمشada ugu dambeeyay xalqadiina weynay soo degtay laakiinse reer weerarkii Tetris wallahi waani qir saaxib yar waani qiray waana boosteen caadi oo u boosteen wallahi warmaha baarasha ka dhacay aadan ilku saaxib yar laakiinse waani damqada beerka Eurosen sidoo kale ani xataa ma ahan dad qaar ani damqada xataa laakiinse aadan ida adkaada sidaas ay taan xalqadiina waa soo dhigay taasna raagilina ka bixiya saaxib yar iga noqday reer weerarkii Tetris ka xalqooyinkiina waa soo dhigay صاحب يرتاسن وأوجه وانا جوليستي سيس أدرادي أنا أهان واحترامه يقولاد إن حلقنا إسكاجر راح يسترجعن ويقولات ما هو وانا ما سنتين صاحب يا أذيك أنا وماذا بلنك بح أو مغض سي أذيك حلقين من صوت جو كلية دي حلقنا أكون راح يسوي سين اللايك تنوحن كأركوايو أنا جنا وحلقية وجهك لأن الصبح يا مرك حلقة كل راح يست إن كفر حدين وقت كقالتين لأني مهمة لك كلنا رير ويركي تتريس كأذيك أنا وحاول فرح دوين النهاية حلقة دي نمر يرجع معي سودجة إن شاء الله وأنا حلقة أفري تمنات إبارتي لبعض سيسون تري حلقة أنا إذا وحيد عن طبيعة صاحب يبوق المشهد wax kale sidaas daraadid ku raaxaysta adiga ta xalqada marka sidaas isku gunaa insha Allah si xalqadina u bilaabno noo salii xabiibkeen Muhammad sallallahu alayhi wasallam xalqadina noo bilaabo俺たちがやることはただ一つ戦えحلقadii hore markii dib ugu laabano marka aragnay in FBI tiro badan Japan lagu soo daadiyay in uu elku amray askarta Japan oo dhamaantood fiirgaal la mariyo sidaasna wuxuu u sameeyay in uu ka shakiyo askarta Japan inuu mid kamid ah inuu kiilka dirsan yahay taasna uu muusid afina sidoo kale familkooda xataa inuu fiirgaal ku fiiriyo taasna dib saa'id waxa uu noqonay light oo hooshii sidoo lagu tagal ma wadan karo laakiin daawada kadib waxa aragnay in uu fikrad aan caadi ahayn Ryuk inuu u sheegay in ay jirto sir cajiib ah adigoo qofka magaciisa xataa aan raadin aa ogaa kartid lightna taasna aad ugu helay laakiin fikrad وين ay leedahay waxay ku xirintaa Shinigamiga sida Ryuk oo kale in dhiig la gasho laakiin dhiigkaas dhibaato weyn oo leeyahay waa ina ogolaataa cimrigaaga in Shinigami kalbar oo ka qaato taasna Light ma yeelin laakiin Light wuxuu sheegay in fikrada xilliga lagu tagalo oo ilku fiirin doono markii xilligeeda la gaaro marka hore waa ina wada keena askartan FBI-da ee soo diray aan ku xalin karo sidee adduunkan oo dhan oo xaakim uu noqon doona oo maamuli doona hadaa waxyaabahan yaryarka aan xalin karin maya waa ina xal u keena markaas Light wuxuu fikrad keena oo warninkan caadi ma aan Iblis hata fikradaas kuma soo dhacayso wuxuu leeyahay ninkan FBI-ga aniga dabgal أنا أقانو سيدا أصو صار لها مقعيسة ريوك قرشيهيغي عجيبك أهديغيسو وحوليها بوغان قفك مقعيس لوقرا وكليا مكومد انتو وحاجر حب لو مرايو قفك مكيلي ديلايو حبكاس وحاكميد مهداما قفكان او دمانايا قابك او دمانايا ودادو أصو مرايو رأي لو بوغان لوقرا او باهيهاي سيدا سا أصمي وحاكو قطوسا وحاجر مجرم أولو بري كور بانجي داعي مجرم كاس نصو قد انت بوغان مقعيس واكو قورا لكن وداد ايرا أصو مراي أنيقو أديكسانا بوغان قفك دمشيدي الزمن كمامولي كرو وحانكو قورا حوكتي سو دون يسيدو كلا قابك او دون او دمانايو مركو وحاكو قورا حيليدا بساسكا راعي مجرمك إنه بسكاس ميد كميد قبصن دونه isla waqtigaas gudihiisa lagu jiro aan baskaas wala suganahay mujrimka sidoo kale ninka FBI anay dabgalaayo markaas gudaheeda inta lagu jiro Ryuk waxa arki doontaa in ninka FBI-ga magaciisa markaas meeshaas ku ogaado dhacdada meeshaas ka dhici doonta ayaa wax walba ku ogaan doona oo war waxa maskax way dhaaftay maxaa waa maskaxdan Light Yagami Light markaas asma sugahe isla markaas uu qorshaha ku dhaqaaqaba wuxuu wacay gabar saaxiibadiisa isla markaas baska u koraan gabadhana way soo raacay sidoo kale ninka FBI-dana kor ka fiirsanayo dabgal ku haaya laakiin ilaa hadda wuxuu ka shakiyay Light kuma arkin markaas gudaheeda inta lagu jiro baska wuu imaaday Light iyo gabadhana wuxuu go'aansanay baska inay koraan ninkan asmaa ka dab haraayay wuu ka dab kor baska isla markaas gudaheeda mujrimkii loo bari kor bangi soo dhacay isla markii baska soo koray wuxuu sameeyay Light buug dhimashada wuxuu ku qoray naftirkeeda ninka mujrimka baskolo darwarka inta ku qabto wuxuu dhahay joojin sidoo kale dadka meesha saaran dhamis dhaqaajin karaan Lightna gabadh inta hoos warqad uu qoro warqadana waxa ku qoran waxbaha ka walin aabeeya askari ah sidoo kale xirfadooyin dagaal xataa wuu ibaray Lightna warqadaas ugu matalgalin gabadh kaliya inuu tusay sidoo kale wuxuu rabaa ninka FBI xataa inuu warqadaas arko sida ay rajeenayeen ninka FBI luqad Japanese ku akhri kara ilaa wani FBI luqad walba inuu barta laga rabaa ninka markuu warqad arko ismarka Light kalsooni uu qaada sidoo kale shaki uu qaba ka baxaayo markaas Light intuu gadaal ugu soo dhawaado wuxuu ku leeyahay waxbaha ka walwalina anaani caawinayo Light taas ku faa'iideysto wuxuu ku leeyahay sababta ku korsanaan maxay taa anigu caawinayso ninkan markaas jeebkiisa ID cardkiisa ka soo bixiyo war waa fashil caadi war waa isfashiliyay aqoonsigiisa banaanka keenay inuu FBI ka tirsan yahay magac waxa ku qoran Ray Bember markaas Light to farxo dhol cadeey wuxuu leeyahay ma aniga iyo adeegsanaya askarta FBI-da ana shaqadaada aqaan ninkan ma hano kugu daayaba Light markaas ID cardkiisa soo celiyo wuxuu ku leeyahay hadda waa ku aqoonsanay askari tahay markaasna wax jeebkiisa iska bixinaa inta isku dhiga warqad ka soo dhacayso isla markaas ninka mujrimka u maleeyahay ninka inuu baskolo soo bixi doono wuxuu leeyahay marka hadaa dhaqan taxbadaran ku dhufanaa Lightna wuxuu ku leeyahay waa warqad le kaliya wax dhulka ku dhacay ninka mujrimka markuu warqada saa u taabto oo warqad caadi ma warqada buuga dhimashada laga soo gooyay hana iloobin daawada qodobkii ahaa Shinigami buugiisa qofka taabto inuu arki karo oo yacni Ryuk soo Shinigami ma ahan Light soo ku arka buugiisa taabta soo maahan warqadiisaba ninkana warqada buugaas kamid ah doo taabtana Ryuk oo arki kara ninkana markuu soo warqadiisa u taabto waxa hortiisa ka soo baxa Ryuk wuxuu u muuqanaa inuu arka malka moodkiisa oo kale asina inta
intuu isku dardarsoomo hal mar xabadaha iska furfuraa laakiinse Ryoga waa jinni oo kale xabadaha ma karaan dhinaca kale ka babaxayaan waxaana arki kara asiga iyo Light markaas ninka mujrimka ninka FBI intuu ku soo ordo asina intuu cararo wuxuu ku dhigaa ninka darawalka baalansiga baska saxi weeyaa ninka mujrimkana baska ku dhaca markaas gudaheena baawul kala imaanay ninka mujrimkana hal mar oo dardara ninka mujrimkana sidaas ayuu ku dhimanaa oo war waxaan dhan waa wax qorshe Light ka shaqeeyay inuu ninka baska soo koro oo darawalka baskoolo ku taago oo sidoo kale dadka dhan qabsado markaas dhacdadan oo saan ku dhinto waa qorshe oo mar hore buuga dhimashada ku qoro oo ugu talagalay inuu ku ogaado ninka FBI magaciisa iyo sidoo kale ninka mujrimka inuu naftiisa tamaha ku waayo Allah Light maxabasar aqli badan tahay maskax badnidaaniyo hadda Light wuxuu awoodaa xilli walba inuu dili karo Ray Bember oo FBI ka tirsan laakiin Light inuu degdega ma rabo ee qorshe kale ku dabacsan yahay arintan inuu ku fududaado ma rabo wuxuu leeyahay Ray Bember hadda aan dilo uu iga shakina in aniga kira ahay laakiin waxa rabaa asiga macal FBI da dhamaantooda ina iswada raacsiyo sidaas u sameeyay bir subaxiya dabagala hadana dilkayga dheeliga mujrimiinta iska wadana Light sidoo sheegay wuu fuliyo subax ma kala gaarno dabgal weyn ku sameeyay Ray Bember intuu gadaal ugu maada Light ninka FBI da ka tirsan wuxuu ku leeyahay waxba is dhaqaajin dhankaada bidix fiiri markuu dhankiisa bidix fiiri wuxuu arkay ninka fatiri ka shaqeynaa wan xanuun ma ugu dhimanayo Ray Bemberna hamaro naxa Light wuxuu ku leeyahay maskaxda ka shaqeysay ninka soo dhinto u jeeda anigu waa kira waxa wada ninka soo dhinta si lamida inaa u dhimatid hadda nafsadaada ka naxaysi sidoo kale familkaaga ka naxaysi waxa ani ku dhahay waa inaa sameeysaa oo Ray Bember wuxuu sameeyay waayo isdhiiba wuxuu leeyahay maxaa iga rabtaa waayahay ku sameeyay Light wuxuu ku leeyahay wax sas weyn ma ahan feelashan qabso baska ma ku ribno sida tartiibka baska ku ribtay la u kor laakiin baska marka kortay iPhone dhagaas ka xiriirina feelashas wax ku buuxi ku dhahlay ku buuxi Ray Bember si Light sameeyay ku dhahayo sameeyay baskana wuu koray laakiin Light kolka ku jira Light wuxuu ku dhahay marka hore feelasha ku dhiibay la soo bax kadibna computerkaaga la soo bax laakiin marka hore waxaan ka rabaa warqada meesha ku jirta in la soo baxdo ko magacaaga una wareysiisid magacaaga warqada marka ku qorto waxaan ka rabaa wixii information FBI oo dhan asxaabtaada computerkaas ku jira dhamaantood in warqada saa ku qorto magacyadooda oo dhan hal qof ha ka reebin oo warniyo haydin warqada buuga dhimashada waa haydin warqada buuga dhimashada warqadan Ray Bember sida uu dhahayo sameeyay wuxuu ku qoray magacyada asxaabtiisa oo dhan sidoo kale magaciisa xitaa ku qoray Light markaas wuxuu ku dhahay intaas ma sameeysaa tariinka meel kamid ah faylasha askariga adana hor u sii soco mar dambe wajigaanayaan arkin ninkan inta hor u sii socdo hamra wadnaha istaag oo warninka wuu qayaana Light wuu dilay ninka Light feelishiisa hor u sii qaata korona ka fiirinayo soo dhahay Ray Bember bye laakiin sidoo kale waxa dhacdaa wada wax la yaab ah Ray Bember kaligiis ma dhiman wixii FBI oo dhan oo Japan ku soo dhamaantood way dhinteen sidaas u sameeyeen dhamaantood sidii hamar ku dhinteen Light inta soo bixin ka hor qorshiis marro ku baaran degay oo marro diyaastaba feelasho Light u dhibay waxay ahayd warqad kamid warqad buuga dhimashada warqadaasna wuxuu ku diyaariyay dhacdooyinka qaabka loo dhiman lahaa laakiin magacyada ka maqan Light Ray Bember warqadaas u dhibay sidoo kale magaciisa Ray Bember ku qoray iyo listiga FBI da dhamaantood oo dhan taasoo ka micno ah dhamaantood 40 second kadib hal mar inay sal dhimanayaan Ray Bemberna wuxuu sameeyay asiga magaciisa ku qoray sidoo kale asxaabtiisa oo dhan magacooda ku qoray maskiinka asiga isdilay asxaabtiisa oo dhan asaa dilay Light wax kale ma sameeyeen dhacdooyinka qaabkii ku dhimalayeen oo kaliya warqadaas ku qoray Ray Bemberna waa si dhameystiray oo warkaara Light wuxuu sameeyeen Light waxa maskax ma la dhigi kare kaale IQ-ga inta ka keentay Light wuu guuleystay waliba guul weyn u soo hoyday wixii rag oo dhan FBI da dabgalayeen dhamaantood uu iska reebay halka guul daro weyn soo gaartay sidoo kale adduunka oo dhan kalsoonida ku qabeen inay dib ugu laabteen Light Mareykanka cabsi weyn ku beeray sidoo kale askarta FBI da dhan dhamaantood argagax qaadeen waxay sheegeen kiiska in faraha la gali karin sababtoo ninkan kiral ay waa nin hor cabsi badan anuguna askartii naftooda kuma hori karno ninkan haliftiisa aad u fara badan tahay oo kaale meel Mareykanka oo ka cararooyay kaale muxuu Jabaanis ka qaban karaa waxay muuqataa inuu dhahay oo kale ana Muuse kabtan kabteeda ma aha koode waaba gooyay arinta dhan waaba ka baxayba sidoo kale askarta Jabaanis ka taa waxay ogaadeen inuu ilka shaqeeyay kadibna oo dab dhiga askar dalka ka baxsan oo Mareykan ah ayagana kalsoonidooda dib ugu laabteen oo waxay dhaheen sidee u wada shaqeeyna anuka nagu shaqeeyay samiya Light aabisana yushiro yeegami wuxuu dhahay kiiska anuka ku filan anuka meel saarayna waxa ugu baahanaa ma jirto waa markii ugu horeysay guul daro saan u weyn oo dhan soo gaarayso kaligiisa ayuu noqday Light uu ku guuleystay qorshihiisa oo saan dhan uu galay in uu ku raaxaysanayo waxaan oo maqlo in dhowl cadeyntiisa shaadinimada ka dareemo saabo laakiin daawada ka hoos bixin naftirkiisa xataa nin yareesta ma ahan waayo wuu ogaa inuu kira ciidamada FBI dhan dhamaantood baabi'i doono sidoo kale ciidamada Jabaanis xataa shaki uu beeri doono markaas nidiisa wuxuu ku dhahay kiiska ma ahan kiiska kale anigoo qarsoon ah xalin jiray waxa la dagaalamayo waxa waay nin maskaxdeedo kale leh oo IQ-giisa aad u sareyso hadda ninka ina ka guuleysto u baahana ma ahan haweeneydii ama wajigeega ina qariyo waa ina dibadda iskeena markaasna wuxuu u ciidamada Jabaaniska Light aabis iyo Yushiro Yagami dhamaantooda inay la kulmaan ayagana apartmentiga markay soo galaan ee qolka uu soo galaan waxay arkayaan cunug yariis ah oo libis caadi iska gashan markay qiyaasta cimrigiisa qiyaasan 18 ama 19 meel soo dhaxeeyo intee yaabaan waxay leeyihiin ma ninka miya dambi baaraha ugu weynaa ee dunida waaba cunug iska yare ilaa markii la kulmaa wuxuu ku leeyahay kiiska Brian ka hadli doona hadda iska hoyi kartiin waa habeene wuxuu raba oo kaliya inuu ayaga isku bandhigo ee aqoonsadaan oo wajigiisa gartaan oo kaliya taasna dan kale oo kaliya oo ku weerarayo Light wuxuu leeyahay maadaama markayga ugu horeeyay watiri markii laga reebo oo dadka kale oo bandhigayo wajigeyga waxa raba inuu ogaado aniga iyo dambi baariyaasha Jabaaniska inaan wada kulanay hadduu ayaga ka tirsan yahay ama banaankaas oo ka imaan doono oo aniga soo raadi doono si oo aan ii dilo ana ogaanayo markaas waana ogahay inuu saas sameey doono oo warninka naftiisu riski gelinayo xataa waxa xataa kama baqay inuu dhinto xataa warninkan maxay tahay maskax
badan asiga xataa ma yareystee subaxii markuu waaga baryo Light wuxuu aabiis ku soo boqonaa xafiiska dambaariyaasha si aabiis uu kulmo mahana wuxuu u kulmaa gabar aabiis raadinaysa oo dhayso waxaa rabaa inaan kulmo taliyo Yushiro Yagami waxaa rabaa inaan ka wada hadalno arrinta keeska Kira Lightna isla markiiba ku Kira maqlo dhankeeda u dhaqaaqa marka wuxuu iska dhigaa inuu raadinayo aabiis oo kale si gabar u maqashiin wuxuu leeyahay waxaa rabaa Yushiro Yagami aabahayga ma jooga mas waa maqan yahay aydan waxay leedahay taliyo Yagami ma aabahaaga asigana taas uu faa'iideysana si uu gabar wada hal u qaato wuxuu leeyahay ha aabahayga ma asam suulka hadarabta in wax u sheegto aniga ay wadaagi kartaa ana la socodsiinayo markaasna gabadhu waxay leedahay dib ma lahan wada hadalkan jidka ku wada qaadanayaan markaasna waxay sheegayeen in saaxiibkeeda ay raadinayso ee laada oo saaxiibkeeda ka tirsan yahay askarta FBI-da marka u dambeysay ay la hadlaysan inuu bas saarnaay ninkaasna uu yahay Ray Bember oo Light wuu naxay waa ninkii Mareykanka ahay oo Light dilayay qoftan waxay taagantaa waa ninkii guursa rabay sidoo kale waxay sheegtay inuu qof dabgal ku sameeynayo qofkaas soo dabgal ku sameeynayo inuu asiga hal mar la waayaba taas oo macnaheedu tahay inuu qofkaas ahaa Lightna taas dil ogaado oo dhamaatay inuu kiriyana wal ogaana oo Lightna intuu wuxuu leeyahay qoftan waa inaad dilaa qoftan halis weyn inta baxar weyn inta waliba waa inaad sabab keena qoftan aan ku dili karo isla markaas Light wuxuu soo baxaa buug dhimashada warqad kamid wuxuuna u dhigaa kiiska inuu qoraayo oo kale Ryog wuxuu leeyahay si taxadar magaceeda u qor asina wuxuu leeyahay waa aqaana waxa sameeynayo Light markuu magaceeda warqad ku qoro 40 second markay dhamaatay boom wax dhacay ma lahan yaa gabadhu way socotaa Light wuu qoro qaabka uu dhimanayso sidoo kale waqtiga ay dhimanayso taas oo macnaheedu tahay magaceeda saxda gabadhan uma sheegin Light hadii uu sheegi leed wuxuu qoro oo dhan way ku dhici lahaayeen Light markaas wuxuu leeyahay gabadhan gabar caadi ma aha waa gabar dambe baare magaceeda saxdana way qarisaa qaab ahaanna waa naag aqli badan sahal ma aha qaabka loo gali karo waa inaa wada kala keenaa Lightna asima fikrad ka dhamaanaysa fikrad aan caadi ahayn ku soo dhacayso inta u tago wada sheekaystaan kiiska hadal badan isku dhaafsadaan hadal kale ku imaado iyo wuxuu ku leeyahay anigu el waa la shaqeyneen laakiin el asaa naga shakiyay aniga aabahay dambaaranaha laakiin hadda kiiska Kira anigu kaligeena ku filan markaasna daawada gabadha ayda askeenaysa waxay leedahay aniga dambaaro hore u ahaa aniga saaxiibkay ilaa shaqeey jirna laakiin aniga waa iska dhaafay saaxiibkay kaliya la shaqeynayay markaasna Light sheedaan way markuu fursad helaysan u dhaqmaa wuxuu leeyahay arinka saas miya meela ka gal hadaba isiisaba wuxuu leeyahay anigu tan la shaqeysa ka waran anigu waxaana sida adigoo kale aad ugu baqnaa Kira kiiskan laakiinse waa ku qasbannahay inaad sameeyno sababtoo waxaan nahay dambaariyaal sidoo kale waxaan ugu jir dad argusi u socdo sababtoo Kira dambi badan oo ka galay adigana dadka salamirta sababtoo waxa rabta inaad saaxiibka ugu argudo sidaas daraadeed anigu ma ugu soo biiri kartaane aydina ugu dambeeytii way dhahday ha diyaar waay ma yoo galaa kartaa inaan igu soo biiro ugu dambeeytii elwo ka keensada hadalka waxaaba la yaabay qofta waxay taagan tahay waxay dhowsaa ku maasantaa si sharaf adi dambaariyaashaada igu soo biirinaysa Ryogna waxaanu dhow waa ku raaxaysanayaa soo qoslooyo le wuxuu taagay Light maxaa stupid tahniyo maxaa qaacin weyn tahay markaas kadib Light wuxuu leeyahay waan soo biiri kartaa laakiin aqoonsi loo baahan yahay aqoonsi la'aan wax soconaya ma jirto qoftaana aqoonsigeeda dhiiboosa mar hadii aqoonsigeeda dhiibto u dhamaatay ayadana waxay leedahay hayo waayahay wax yar isug markaas aqoonsigeeda soo bixisay farteena Light ka saartay waa u dhamaatay maskiinta isla wadadii saaxiibkeeda ku dhimanayay Ray Bember ee naftirkeeda ku dhimanaysa Light markuu xaqiijiyay magaceeda inuu gacanta ku dhigay maba la sugooyo xataa isla markii warqada uu hayaa uu ku qoraya magaceeda wallahi Light maxaa qaacib weyn tahay aqli badan niyo Light markaas markuu wixiisa dhameesto magaceeda dhan wada qoray gabadhu waxay weydiinaa maanta maxaa saacadaada u fiirinaysaa asigana wax dhan uu ka xaqiijistay markaas mas'uulayo wuxuu leeyahay ma sidaasa waxa laga yaabaa inay tahay because I'm Kira aydan intii aad u naxday wuxuu ku leeyahay quruxay bye bye sidaas ayuu iskaga reebay Light qofkii labaad oo caqabad xaqiisa ku ahaa 40 second markay u dhamaatay gabadhu waxay u dhaqaaqday in ayda gacanteeda isku disho waana wuxuu Light u qoray waxa ka yaabinay daawada labadooda hal qaab u dhinteen ayda saaxiibkeeda hadii aqoonsigooda dhiibi laheen waxa ma dhacdeen ilaa waxa la soo ogeysiyay Ray Bember xaskiisa xataa in ayda gacanteeda isku dishay ilaa wuu yaabaya waxaas macquul ma aha gabadhaas ana aqaan gabadhaas waa gabar daacada intaas oo san ilso shaqeynaysa waxa soo kale inay ku dhaqaaqdo macquul ma ahan in isdishaa nafteeda haligtaa waxaan dhageysan kara ma ahan maya gabadhan Kira wax ka ogaatay gabadhan ayadu waxay raadinac ku sameysay saaxiibkeeda dhimashadiisa markaas kadib waxay wax ka ogaatay saaxiibkeeda inuu iska dhibano oo Kira ka dambeeyo ayadana keeska Kira daba dhigatay sidaas oo Kira iskaga reebay war ninka muujada ninka nin yareysta ma aha maskaxdiisa u shaqeynaysa muujada wuxuu sheegay dhan waa wax runa ilaa markaas wuxuu leeyahay horta Ray Bember shaqaduu hayay asiga FBI oo ahay waxaana la dabdhigay askarta Japanese mid kamida qof kale dabdhigana wuxuu ahaa adiga wiilkaaga Yushiro Yagami anigu wiilkaaga ka shakasanahay Light aabiisna hal mar waxa ma wiilkayga ma ku keenteen wiilkaaga kiiska soo galay qof Ray Bember la dabdhigay wuxuu ahaa wiilkaaga ciidamada FBI-ga askarta Japanese oo kaliya mar dabdhigan ee waxa la dabdhigay familkooda xataa sidaas daraadeed wiilkaaga ninka dabdhigan wuu geeriyooday sidoo kale xaaskiisa xataa way geeriyootay sidaas daraadeed wuxuu leeyahay wiilkaaga shak weyn ka qabaa ee waxa rabaa la sameeyo qolkiisa oo dhan kaamira trikliya lagu xiro si uu u ogaano wuxuu sameeynayo askartana amarkiisa way ku dhaqaaqay waxayna ku dhajiyeen qolkiisa kaamira intuu asiga maqnaay Light markuu qolkiisa imaado wuxuu arkay qataarka albaabkiisa wax ka qaldan
layd waa shakiyey layd mar walba markuu qolka ka soo bixi jiray qataarkiis wax yar oo kali joogli jiray si uu u ogaado qolkiis in la soo galay in kale laakiin hadda wuxuu arkay inuu qataarka dhan wada siman yahay taas oo micnaheedu tahay qolkiis waa la soo gal waa laga soo baxay wuxuu leeyahay Ryog waana la fiirinayaa adina ma arkay laakiin ana la arkay oo kali laakiin hadda xaraba dabgala ligu haya ilwa ii shakiyay in la iga dareemin qolkan waa la soo galo kamera lagu dhajiyay qiyaasayo Ryog waxaan ka rabaa xaafadda marka u laaban inay sheegto wixii kamera qolka dhan ku dhigan iyo dhinacaha iga xigaan anigana kii tufaax iyo waa ka dharjina Ryogna muxuu leeyahay intaas miya hada tufaax ku helay ana ku xisaabanaayba Ryogna markuu waxa dhan kamera u xisaabiyo wuxuu u sheegay inuu dhinac walba kamera u dhigan yahay kamerada aad u badan yihiinba oo layd wax oo sameey kar ma laha laakiin baxar weyn ku jira waxa la jooga xili kira mar walba wax oo dili jira hadeena taas joogsato waxa cadaanis layd yagaami inuu yahay naftirkiisa kira ilaa taasna si fudud ku ogaana layd wuxuu leeyahay dilka daajoji way ogaanay inaa wada keena waay markaas jibskiisa intuu iska furto wali wax layd dilooyaaba yaa sidoo wax ku dilooyaa mujrimiinta intuu ka daawanayo layd markaasna daawada waxa arkayna layd wuxuu sameeyay wax aan caadi ahayn jibiska oo furay wuxuu galiyay shaashada yariis ee uu ka fiirsanayo akhbaarta mujrimiinta oo dhan maha laga soo deenayo oo wallahi maxaa balaaye tahay hadii lagu fiirinayo xataa xuma dilusa warninka kaftiisa caadi ma aha ayagana waa u jeedaan way fiirsanooyin waxaan u maleeyaa arday wax iska diyaarsanayo layd qorshiisa mar walba ku guuleystaa xalqadan sa u jeednana waa noo cadaatay in laga guuleystay illa koro ka daawanooya layd wali wuxuu dilooyaan dagaalkan LE kira u dhaxay ilaa halkee u gaarsiisnaaha sidoo kale layd sama ugu shakisnaaha waxa soo dhan waxa ku arki doona xalqadiina soo socota insha Allah daawada xalqadan waalida ka heshay layd iyo subscribe ka inaga yoobana waana maasantii magaciigu Cabbaas Janaka Cabbaas Imbaay nabadgeliyo Allah layd maxaa waali tahay